السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا القناة كنا هني يمان وعاد هذا بيني كل سعطان واني قاول عشان حنان دقن ما أنت برامج كنا وبرامج كنا أريما قيسك برامج كنا ما أنت حنو كسر قادم دونا واكوما نينكا لوميا أما بربريا جعيلك حاسكيسا أما جعيلك كبر حريرك كلام حي وكما نينكا بربريا درينكا يا جعيلك أي وهيسو كبر حريرك كلام حيا أما حاسكيسا نينكاسي وعنينكا أنا نعمل سنين إنه مالين وين دونه قف كان حريرك كلا دحيو وعنينكا آمسن إنسان قف كان مرنبا أيسن كتاجي دونين وسن واين دونين أيضا ولي بوشيسو أو دحيسو جوجي رقمدان جوجي طبيعدان جوجي حيابهانات كدق ميسد وديبو وين كرتا وانكو كالقوي كرنا waxaan waxay dhibaato u geysanayaan shaciirka naga dhexeeyo labadeena xitaa haddii uu waxyar aamino lagama yaabo inuu joojiyo ama ma awoodoba inuu isbedel sameeyo marka qofkaasi wuxuu iloobay inuu qofkan jacaylka iyo xiriirka kala dhexeeyo uu yahay qof bilaadan ah inuu dhammaan karo xiriirkan iyo jacaylkan si kastoo qofkani ku jecel yahay waxa weeyaan jacaylka mid dhammaan kara si walba qofkana ku jecel yahay si walboona kaaga maarman hadoona ihtimaam dhinacaaga ka haysanin jacaylkaasi waa mid dhamaada oo baabaa taasina waxay keenaysaa in qofkan asagoo waxba ogeyn asagoo is aaminsan asagoo iska dhaadhiciyo lagama yaabo marnaba inay kaa tagto la'aantaa ma noolaan karto la'aantaa ma dhaqaaqi karto la'aantaa talaabo ma qaadi karto ma laga yaabo qofkan inay adiga kaa tagto isagoo iska dhaadhicinaya oo maalin kora waayo qofkii jacaylkiisii uu waayo ihtimaamkeedii maalintuu ogaada ninkaasi inay gabadhan dhammaaday jacaylkeedii inuu gabadhan ka dhammaaday ihtimaamkeedii inay gabadhan joojisay su'aalihii shalay ay weydiin jirtay xagee u socotaa halkee ka imaatay maxaa waxaan igu samayn laadahay kan iima soo qabatido waxyaabahaas oo dhan ay ka baxeen daaqada maalintaas ayaa waaga ku baryayaa maalintaas ayuu ogaanayaa inuu lameeyay dareenka gabadhan ay u haysay markuu ogaado ayuu wuxuu bilaabayaa inuu waasho wuxuu bilaabayaa inuu u dhaqmo si waali ah waxaa ku dhacay stress wuxuuna sameynayaa waxyaabo gabadhaas kasii fogeeyo halkii uu kasoo dhaweysan lahaa halkii uu kasoo ceshan lahaa jacaylkeedii ayuu wuxuu sameynayaa inuu iska sii fogeeyo inuu daaqada kasii saaro inuu kula dhaqmo adag iyo hadallo adag kuwaasoo keenaya inuu qofkan kasii fogaato gabadhan ku dhiirigelinaya inay iska ilowdo sababtoo inuusan ahayn qofkii ayadoo qalmi lahaa ayadoo shalay ay ku jirtay 50-50 talo ma fiicnaada ama isbedela ayadoo nafteeda ka dhaadhicinaysay haddii qofkan ay ka tagto inay dembi ka galayso ayuu wuxuu kula dhaqmayaa xanaaq qaylo buuq joogta ah isaga dabcan waxay ka tahay soo cesho qofkan laakiin qofka naxariisu kusoo laabta moogee qaylo iyo buuq midna kuma soo laabto taasna waxay sababaysaa inuu gabadhi waayo gabadhan ay ka tashato ay tiraahdo aleelahe wadada ku dawaynad wayba saxneedba qofkaana sidiisaba jacaylkaa u haysid iyo xanuun walba aad dareentid iyo dhib walba aad dareentid waa inaa qaadato wadada riskiga ah sababtoo ah ooyinta maanta ooynaysid ka badan beri ma ooynaysid cidlada maanta dareemaysid ka badan beri ma dareemaysid dhibaatada maanta ku jirtid ka badan ma ku jiraysid waxaa laga yaabaa dhowr bilood ama dhowr asbuuc inaad iska ilowdo qofkan sidaas darteeda raggow qayladiina iyo buuqiina iyo ihtimaam la-aantiina waxay ku kalifaysaa gabadha inay idinka fogaato inay qaadato wado ayadoo u qaasi ah maalintii go-aankeeda qaadatana way adag tahay inay soo laabato
dumarka waxay fiican yihiin in la haysto, lala dhaqmo, la wanaajisto, wax walba qaladana laga soco intay kula joogto, intay kugu qaylinayso, intay ku canaananayso. intaas oo dhan ay samaynayso qalbigeeda waxaa ku jiro jacayl, waxaana ku jiro rajo way isbedeli doonaan. laakiin maalinta joojisay inay kugu qayliso, maalinta joojisay inay ku xanaanato, maalinta joojisay inay su-aal ku weydiiso, haddii aad iska dhaadhicisay way degtay, way aamustay, inta hore way ka fiican tahay, maya, noloshiina khataray ku jirtaa. sababtoo maalinta joojisay ihtimaamkaaga, maalinta joojisay su-aalahay ku weydiinayso, waa maalin ay go-aan qaadato, waa maalin si tartiib tartiiba ay lugaheeda ugala baxayso noloshanay ku jirto, waa maalin ay si tartiib tartiib u aas-aasanayso gurigeedii ama nolosheeda khaaska u ahayd ayada. waa maalin ay raadinayso isku filnaansho inay samaysato ayada. maalinta lugaheeda ku istaagto isku filnaansho samayso, maskaxdeedii ka shaqaysiinaysana go-aankeeda ay qaadato, way geesii jinsanaysaa. wax walba oo samaysidna way adag tahay inaad soo ceshatay, sababtoo ay dumarka markii ay sii jeestaan sidii lagu soo celiyo way adag tahay. way dulqaad badan yihiin, way samir badan yihiin, way qaylo badan yihiin, way dagaal badan yihiin, way dadaal badan yihiin, balse waa inta ay ku rabaan. maalintii go-aankaa qaadato, wax walba aad samaysay lagama yaabo inay dib kuugu soo laabato. marka ragow, intaad haysataan gabdhihiina, xaasaskiina, jacaylkiina, ilaashada, u dhowrta sida boqoradii oo kaleeto, u ilaaliyo kuulkuuliya sida walaasha iyo hooyada iyo gabadhaadaad kuulkuulin lahayd oo kale. sababtoo iyadu waa gabar, waa walaal, waa hooyo, waana hooyo iyo aabbahay gabar u tahay, wiil ayay wilaashiis tahay, cunugaaga ama wiilkaaga ayay hooyadiis tahay. waa sharaftaada, ilaasho sharaftaada intay kula joogto. maalintii kaasii jaasato go-aan qaadato, waxaan isku dayin inaad soo celisay, sababtoo cudoon way tagtay iskiilow. dumarka go-aan markay qaataan ma soo laabtaan. marka waxaynu kula talinayaa rago, ilaashta intaa haysateen, hakadaba ordina markay xeero iyo fandhaha kala dhacaan. waxaad ilaashataan intuu gurigiina yahay mid degan, waxaad ilaashataan oo raali gelisaa intii gabadha kugu qaylinaysa, kugu booqayso. maalintii sii jeesato, waxbaa ka daba ortay, way tashatay, adigana isku day inaad tashatay. marka barnaamijkeena maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. waa aniga walaashin Xanaan Degan. بليز دايات كاش برامج كينا سبسكرايب نوصل جنال كينا كمل نقا أصحابتينا آدي ومهزمتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه كنت ذنبه وحيسا.